taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sarreeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa uu maanta tababar muddo soconayay u soo xidhay saraakiil kala duwan oo isugu jira hablaheennimo isla markaana ah ardadii ka soo qalin jabiyay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Soomaaliland. Xidhitaanka tababarkan loo soo xidhay saraakiisha ayaa waxa ka qayb galay taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland iyo waliba saraakiisha kala duwan. Ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay hoggaanka tababarka ciidamada booliiska Soomaaliland gaashaanle sare Maxamuud Ducaale iyo waliba khabiir Salebaan Cumar ku joogo kamid ah macallimiintii bixinaysay tababarkaasi. taliye waxaa fadhiya saraakiishii iyo macallimiintii oo ka maqan yahay taliyaha ciidanka bilayska Cabdiraxmaan Liibaan Axmed iyo Daahir Cali Wacays oo hawl awgeed ku maqan oo ka mid ahaa macallimiinta tababarka bixinaysay ninka kaalinta koowaad galay iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kulli abaalmarin baa la siin doonaa midba waxay ahaataba laakiin waxa loo baahan yahay waxbarashadaas inaanay ku ekaanin ayaamihii qurahay wax baranayseen inay ku dhisataan oo ku tala gashaan inaad noqonaysaan 20 sano soo socda ragii loo carbinayay in madaxda bilayska iyo hoggaanka bilayska ciidanka noqdaan. gabagabadina taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sarreeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa si rasmi ah ugu soo xidhay tababarkaasi saraakiisha waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaa tababarkan iyo kuwa kaleba ay ka mid yihiin talaabooyinka kor loogu qaadayo aqoonta ciidanka booliiska saraakiil iyo askarba waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo har iyo habeenba hiil iyo hooba la garab taagan kor qaadida hadaytay xagga qalabka hadaytay xagga aqoonta hadaytay xagga hawlgallada madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha ayaan iyaduna u mahadnaqayaa oo iyaduna ku hamiyeysa sidii ciidanka booliiska aqoontooda kor loogu qaadi lahaa macallimiinta iyo khabaradii casharka bixinaysay ee uu hormoodka u ahaa Salebaan Cumar waxa kale oo farxad weyn noo ah in saraakiisha hadda tababarka loo xidhayo oo gabadhiyo wiilalbali ay yihiin dhalinyaradii ka soo qalin jabisay jaamacadaha kala duwan ee dalka isla markaana qaatay saraakiisha waxyaalaha halkan la idinku barayay waxaa ka mid ahayd hoggaaminta guud iyo maamulka saldhigyada shuruucda kala duwan sababta aanu taliyaha saldhigyada aqoontooda xoogga loo saaraya waxay tahay saldhigu waa mishiinka ciidanka booliiska uu ku dhaqaaqayo waana halkii cadaaladdu ka soo bilaamaysay waxaan saraakiisha taliyada saldhigyada looga baahan yahay inay yeeshaan awood hoggaamineed iyo aqoon baadhiseed oo ay ku hagi karaan baadhista kiisaska saldhigyada soo gala kulana xisaabtami karaan unuga dambi baadhista oo ugu horreeyo madaxa baadhistu sidoo kale madax baadhisyada waxaa loo siinayaa tababarkan inuu aqoonna ka sarreeyo kuna hoggaamin karo baadhayaasha kale kiisaska kala duwan si ay cadaaladda u sugnaato maanta oo ay bisha 6 tababarkan waa idin xidhan yahay waxaan idinkula dardaarmayaa waxaan saraakiisha tababarka loo xidhay ku boorinayaa inaad bulshadiinna ugu adeegtaan cadaalad iyo sinaan. gabagabadina Sarreeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa abaalmarina guddoonsiiyay 3 sarkaal ee ugu sarreeyay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.